السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal idil ahaantiinaba halkani maanta waxaynu kusoo gudbin doonaa dabkii xalay ka kacay Somaliland. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka ha hilmaamin inaad subscribe inoo saarto, sidoo kalena aad like saarto si dad badan ay u arkaan ayna ugu ogaadaan xog badan oo ku saabsan dabkii ka kacay Somaliland. Aynu guda galno. dabkani ka kacay Somaliland ayaa wuxuu sababay dhimasho iyo dhaawac, inkastoo ay dhimashadu aysan ka badnayn hal qof. La soo sheegay kaliya hal qof inuu ku dhintay dabkaasi. Haddana dabkaasi ayaa wuxuu sababay in dad badan ay ku waayaan guryahoodii iyo baqaaradoodii. dabkaasi ayaa wuxuu sababay dhibaatooyin aad u fara badan aanan la soo kabsan karin, aanan la sheegi karin. Goobta dabka uu ka kacay ayaa waxaa iskugu yimaaday ciidamo fara badan ay isugu jiraan militariga, booliiska iyo dabdamiska, ayagoo ka qayb qaadanayo qaabka dabka lagu baqtisiin lahaa. Halkaasoo Somaliland, dadkii iyo deegaanka Somaliland ayaa waxaa looga baaqay inay dabkani kaga qayb qaataan hababkii ay ku damin lahaayeen, sida ayagoo keenaya gaadiidka cagaf-cagafta iyo booyadaha. Halka dabka uu ka kacay ayaa waxaa iskugu yimaaday shacab fara badan, shacabkaasoo kaalina ka qaatay qaabka dabkii lagu damin lahaa. Mas-uuliyiin ka tirsan Somaliland ayaa iskugu yimaaday sidoo kale goobta uu ka qarxay dabkani. Mas-uuliyiinta waxaa ka mid ahaa madaxweyne Muse Biixi iyo musharax Cabdiraxmaan Efow. Dowladda Somaliland waxay ugu baaqday shacabka inay kaga qayb qaataan habab kala duwan siday ku baqtisiin lahaayeen dabkani. Mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxay sheegeen in dhibaatada xalay soo wajahday Somaliland iyo deegaanada Hargeysa inay aad iyo aad ugu xun yihiin. Mid ka mid ah wariyeyaasha Somaliland ayaa wuxuu soo sheegay kaasoo goobjooga ka ah barta uu ka kacay dabka, ayaa wuxuu sheegayaa in dabka meelo fara badan laga soo damiyay. Inkastoo reer Somaliland ay ku guuleysteen dabkii inay ka damiyaan qayb ka mid ah, balse haddana dabkii ayaa wuxuu u sii fidayaa dhanka galbeedka. Waxaa sheegay mid ka mid ah wariyeyaasha Somaliland inuu dabkii weli uusan damin, balse uu u sii fidayo dhanka iyo galbeedka. Halkani baynu kusoo gunaanadeena wararkeenii ku saabsanaa dabkii xalay ka kacay Somaliland. Fadlan intaynu kan kiisa ka kulmi doono ha hilmaamin inaad subscribe saarto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.